bismillahi raxmaan raxiim. Sheekeeye waa mahadsan tahay adiga iyo bahda SNTV oo maanta nagu soo booqatay xafiiska wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waana salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. wasaaradda howlaha guud howlo fara badan ay gacanta ku haysaa, kuwa hadda gacanta lagu hayay, kuwa soo socdaba oo ay ugu muhiimsan yihiin dib u dhiska dalka. waxaa hadda meel gabagaba marayo gacanta lagu hayaa sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan dadkoo dhan ay ka warhayaan jidkii Afgooye iyo Xamar ama Xamar iyo Afgooye. sidoo kale waxaa dib loo bilaabayaa oo dib loo bilaabay hadda jidkii kale oo Xamar iyo Jowhar. sidoo kale jidad kale oo maamul goboleedyada ilaa iyo 4 maamul goboleed laga bilaabi doono dib u dhiskooda oo ayagana phase 1 maraya waa jiraan oo hadda aan filayno bishaan Abriil assessmentigooda inuu kuwa qaar bilowdo, kuwa kalena dib ay u bilaaban doonaan insha Allah. marka guud ahaan wasaaradda howlahaas iyo howshii isxilqaan oo dib u dhiska loogu sameynayay xarumaha dowladda oo ayadana meel gabagaba marayso. meelaha qaar waa lagu guuleystay waana la furay, meelaha qaarna hadday dib u dhiskiyaa socdo oo waxaan rajeynaa goordhow in la furi doono oo ay ka mid tahay xarunta maama hooyooyinka ee maama baxsan oo hore loo dhihi jiray hooyooyinka, taasoo ayadana hadda meel fiican marayso oo aan rajeynayno in la gabagabeyn doono bilaha soo socda ama 2 bil ee soo socota gudaheed. marka howlahaas baaxadda leh oo ay wasaaradda hayso iyo boolisiyada oo ay wasaaradda gacanta ku hayso guud ahaan maadaama dalka oo federaal yahay. sidoo kale waxaan wada shaqeyn dhow la leenahay wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dhammaan dalka oo aan si dhow u wada shaqeyno oo ka wada shaqeyno howlaha dib u dhiska dalka guud ahaan, gaar ahaan shuruucda iyo waxyaabaha looga baahan yahay maadaama dalkeena oo waagii hore system central oo ahaa maantana oo federaal yahay. waxaa dib u hagaajin u baahan shuruucdii dalka oo lagu shaqeyn jiray waayadii hore maadaama dalka uu ka gudbay marxaladii hore oo centraalka ahayd oo u gudbay federaal. taasaa waxay u baahan tahay in shuruucdii iyo wixii oo dhan dib loo hagaajiyo. haddana wasaaradda gacantay ku haysaa howlaha shuruucdaas. qaarna waa gabagaboobeen, qaarna hadday gacanta ku hayaan. ayaduna waa howlo baaxad leh oo maadaama wasaaradda ay dhismo tahay, dhammaan injineeradii dalkoo dhan wasaaradda ay ka diiwaan gashanaan lahaayeen oo ay ka shaqeyn lahaayeen waa halkan. ayadana dib u kabashadii ayaa lagu jiraa oo aan rabnaa hadda inaan dib u habeeno oo center injineerada ay leeyihiin aan sameeyo oo wasaarad ahaan hadda qorshaha noogu jiro oo mar dhowna aan dib u furi doono oo centerkaas dhammaan waa centerka ugu muhiimsan ee wasaaradda maadaama wasaaradda halbowlaheeda oo yahay injineero. centerkaas inaan u hagaajino oo dhammaan gobolada iyo faracyo looga sameeyay maadaama wasaaradaha howlaha guud ay ayagana nala shaqeeyaan. marka howlahaasaan gacanta ku haynaa oo aad u adag. waa ogtahay oo dalku wuxuu u gudbay marxaladii labaad oo dib u kabashada. wasaaraddana mas-uuliyadda ugu badan waxay ka saaran tahay dib u kabashadaas, gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha. kaabayaashaas dhaqaalaha ayaa muhiimadda ugu koowaad noo ah ka wasaarad ahaan. ayagaasaan dib u hagaajin iyo dib u habeyn maadaama 30 sano ay burbursanaayeen. dakhli fara badanne waa ka soo xaroon doonaa markii howlahaas dib loo hagaajiyo in dhammaan dalkoo dhan. wasiir waa mahadsan tahay sida guud arrimahaas aad noogu faahfaahisay. marka laga hadlayo dhismaha waddooyinka arnaa inaan xoogaa kala qaadno dadkana aan si fiican aan ugu bidhaamino. aad iyo aad waxay Soomaalidu weliba dadka Soomaaliyeed ay aad muddooyinka dambe indhaha ay ugu hayeen dhismaha ka socda waddadan isku xiran Muqdisho iyo Afgooye. middan cusub ee hadda la bilaabay marka labadooda waa kala qaadaynaa. bal middan hadda Muqdisho iyo Afgooye xaggee maraysaa, goormaa lagu rajo weyn yahay in la soo gabagabeeyo?
waa mahadsan tahay. Waddada Muqdisho iyo Afgooy isku xirta horta waxaa la dhagax dhigay labada waddaba isku xilliyaa la dhagax dhigay 19 February 2019. Laakiin markaas ma bilaaban oo preparation lagu jiray diyaarin, adigu ilaa 4 bil 5 bil kadib ay bilaabatay. Waddada Muqdisho iyo Afgooy hadda waxay maraysaa heer gabagaba ah. Waxaa la hagaajinayaa raanaboodyadii ilaa 5 raanabood iyo marshabiyeedyadii iyo laamigii ugu dambeeyay oo la saaro. Shirkadda dhismaha gacanta ku hayso oo aan la kulmay 3 week ka hor waxay ii xaqiijiyeen muddo 2 bilood gudaheed inay ku dhammayn doonaan ilaa 50 iyo dhowr cisho gudaheed. Marka waxaan rajaynayaa dhammaan dadkuna waa arki karaan meesha ay wax marayaan. Annagu waxaan ku leenahay ka wasaarad ahaan maadaama shirkaddaas ay fulinayso kormeer joogto ah aan sameynaa. Meelaha qaar aan aragno inay tayadii loogu talagalay aysan ahayn, waxaan riboorka u dirnaa shirkadda gacanta ku hayso. Marka waxaan rajaynayaa waddadaas meesha ay hadda marayso waa marxaladdii u dambeysay oo gabagaba ah. Waxaan rajayn doonaa goor dhow insha Allah in la furi doono dadka Afgooy iyo Xamar isku xirka waddadaas muhiimka ah oo aa ogtahay qudaarta magaalada Muqdisho imaatay inay waddadaas inta badan isticmaalaan. Shacabka Soomaaliyeed oo meeshaas ku nool dhulkaas degan ayaduna waxaa u fududaan doonta isu socodkooda. Waqti kooban ayay ku imaan doonaan mar haddii marxaladda hadda ay marayso gabagabada ay dhammaato. Waa loo wada aayi doonaa, dhammaan ummadda Soomaaliyeed way u aayi doontaa. Markii ugu dambeysay oo aan kormeerka ku tagay aniga waxay maraysay waddada ceelasha biyahay maraysay, waxay aad ugu dhoweyd Lafoole. Hadda waa gabagabo, fayskaas waa dhammaaday. Fayskii ugu dambeeyay marshabiyeedyadii iyo hagaajintii waxaan sugnaaba xarag jarkii oo madaxweynaha inoo xarag jari doono oo aan ku balansannahay ayaan sugaynaa. Taasna shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay meeshii ugu dambeysay marayso way adkaysteen. Wax badan oo marxalado badan oo caqabado badanaa lagala kulmay intaa ka warhaysaan. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidankeeniyaa nooga dhintay, injineero oo ajnabi ayaa intay waddada socdeen naftooda ku waayey ayagoo dib u dhiskii dalka gacan ka qaadanayo. Caqabado badanaa jiray, waa ka guuleysanay. Dadku sida ay filayeen iyo maanta natiijada lahaayo waa kala duwanta. sidoo kale iyana waxaad bilowdeen waddadan cusub ee hadda dhismaheedii ay wasaaraddu bilowday oo iyana xiriirisa magaalada Muqdisho iyo Shabeellaha Dhexe. waa Jowhar iyo Muqdisho iyo waqtiga loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyay haddii aad shacabka aad la wadaagto iyo hawsha si hadda u socoto. Waa mahadsan tahay. Waddada labaad waaye oo Muqdisho iyo Jowhar ayaduna waa waddo halbowle ah oo aad muhiim u ah oo beeraleyda labada shabeelle access fiican ay u helaan. Beerihii ama tacabkoodii si fudud in magaalada ay soo gaaraan. Waddadaas waa la shaqadeeda hadda bilow ah maadaama waddadii kale ee Afgooy iyo Xamar ama Xamar iyo Afgooy ay gabagaba tahay. Shirkaddii Turkiga ahayd oo dhisaysay waxay bilowday inay hadda basementigii ugu horreeyay ay sameeyaan oo xaarxaarkii ugu horreeyay ay sameeyaan oo si xooli ah. Waxaana rajaynayaa maadaama khibrad fiican ay ka heleen waddada Xamar iyo Afgooy, markii la fiiriyana population ahaan dadku hadda wuxuu aad u degay Xamar iyo Afgooy inta u dhaxayso. Khibraddii lagala kulmay iyo caqabadihii laga kulmay waxay u noqotay waxbarasho iyo experience fiican ay u noqotay. Waxaan rajaynayaa inay ka fududaan doonto ayna ka waqti yaraan doonto waddadii hore ee Xamar iyo Afgooy. Waddada Xamar iyo Jowhar inta aan hadda ka ogahay aad cariiri uma ah. Xataa waddadan caqabadaha dadka ay kala kulmi jireen dadku maadaama halkaas ay waagii u wada qaxeen oo ay dadku meeshaas aad u degeen waxay ahaayeen shacabka aad u deganaa. Xataa in la xiro waa aadaa loogu dhibtoonayay, inkastoo shacabkana ay u dulqaateen maadaama dib loogu dhisayay. Waxaan rajaynayaa
khibraddii aan kala kulannay waddada xamar iyo afgooye in shirkaddii nafteeda dhisaysay ay kala kulantay waqtigan inuu noo koobnaan doono shaqo saxa oo muhiima maadaama annagana aan kormeerno ayuuna dhismihii ay dhisayaan waxaan filayaa sida ugu dhaqsiyaha badan waqtigii ay naga qaadatay xamar iyo afgooye inaysan naga qaadan doonin xamar iyo jowhar shacabka meeshaas degan maamulka madaxweynahooda waa is aragnay diyaaray u yihiin ayagaa ilaashanayo ayagaa amnigoodii aad uga taxadiraya ayagaa hilow u qabo bilaabashadaas ee hadda bilaabatay marka waa rajeynayaa in si deg deg ah loo dhameeyo waa dadaalo dowladda dhexe ee dalka soomaaliya ay wado arrinkaasi wasaaraddaadna ay u qaabilsan tahay waana wax wanaagsan wasiir waxaan rabaa dadaaladan waddooyinka dib loogu dhisayo dowladda ay wado wasaaraddaadana ay mas-uulka ka tahay doorkii shacabka xagga ilaalinta marka laga hadlaayo maxaad arrinkaasi ku saabsan adoo shacabkii la hadlaya ilaa haddii wadda la dhisaa oo dowladda ay ku guulaysato wasaaraddii ay ka shaqayso injineergeli qarash lagu bixiyaa hadda shacabkii waxaa jira door muuqda inay ka qaataan taasoo ah sidii ay u ilaalsan lahaayeen waxa kan hantidan iyaga ay leeyihiin loo dhisay marka taa iyada ah maxaad xagga shacabka kala hadlaysaa waa su-aal muhiima horta waddooyinka la dhisaayo dowladdu mas-uuliyaddii koray leedahay iyo shaqadaas inay u qabato shacabkeeda servicekii lagu lahaa waayo shacabka mas-uuliyad waxay ka saaran tahay inay waddadaas ilaashadaan ayagaa iska leh dowlad ma leh qof shaqsiya ma lah shirkad dhisaysa ma lah shacabkaa iska leh shacabkaasoo dan u yahay shacabka markaa haddaba dowladda aaday ula shaqeeyaan way ilaashadaan qaarkooda ku naf waayey markii oo ay intay socotay shacab waddadaas isticmaalayay aan waxba galabsan ayaga oo waddadaas socda ayaa waxyaabaha qaar ay wax ka soo gaareen dadka qaar shacabku marka waxaan ku boorin lahaa inay wax kasta oo dan guuda oo dadka ka dhexeeyo nin walba inuu u ilaashado gurigiisoo kale guriga uu degan yahay iyo xoolihiisoo kale inuu u ilaashado hantidaas waa hanti guud nin walba mas-uuliyad gaarah ka saaran mas-uuliyaddaas inay gutaan siday u gudan jireen ilaashadaan sidoo kale waddooyinkaas markii la dhisoo kale xataa shirkadaha korontada iyo biyaha iyo waxoo dhan ayagoo naftooda mas-uuliyaddaa ka saaran inaysan sidaan ku aragna hadda laamig markii la dhiso ay iska jeexdaan oo ay koronto gishtaan oo biyo gishtaan shaqada intay socoto waa ogyihiin inay qorshaha ku darsadaan oo ay sii qorsheeyaan markii wax la sameynayo inay ka faa'iidaystaan waa garan kartaa laami la dhisay inta la jeexo haddana sidiis aan lagu soo celin karin baabuurta xataa markay marayaan waa laga dareemaa marka shacabkaa laga rabaa marka inay aad u ilaashadaan mas-uuliyad gaara iska saaraan ganacsatadu shacabkay ka tirsan yihiin shacabkay ayaga naftooda u shaqeeyaan waa ganacsato soomaaliyeed mas-uuliyad ka duwan midda shacabkaa ka saaran waxaa ka saaran ilaalinteeda baxnaaninteeda gacan kuhaynteeda in wasaqda laga ilaaliyo shacabka nin walba ee waddada inta kaga aadan guri kasta inta waddadaas kaga aadan waxaa laga rabaa inuu nadaafadda sida gurigiisa oo u nadiifinayo inuu u nadiifsado oo ay bilicdaa aysan isbedelin dowladaha hoose oo dowladda hoose ee muqdisho dowladaha hoose ee gobollada sidaas oo kale dowlad hoose kastane mas-uuliyad gaara waxay ka saaran tahay bilicda waddadaas la dhisay ama dib u dhiska lagu sameeyey waa mahadsan tahay wasiir waxaa jiray tiim dhowaan farsamo safar ka yimaaday oo uu horkacayay dhismaha guud ee wasaaraddan howlaha guud iyo dib u dhiska ee guriyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxay soo mareen caasimada waaweyn ee Kigali ilaa iyo Addis Ababa tiimka ujeedkooda muxuu ahaa waa mahadsan tahay tiimka waa tiim wasaaradda shaqaalaheeda ka tirsan oo hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda ilaa 17 qofood oo injineero iyo iskugu jiro shaqaalihii wasaaradda waxay aadeen aqoon kororsi waxay u aadeen waddanka Rwanda caasimadiisa Kigali oo aad og tahay Rwanda in dal annagoo kala ahaa burbur badan gaaray ka soo kabtay haddana ah tusaale marka
waxay u aadeen aqoon kororsi inay soo bartaan. waxaa martigelisay wasaaradda howlaha guud ee dalkaas. ayagaasaa inta ay meeshaas joogeen weygay joogeen, weygaas waxay sameynayeen aqoon kororsi. waxaa la wada wadaagayay khibradaha labada wasaaradood. sidoo kale waxay booqasho ku tageen dib u dhiska gacanta ay ku haysay wasaaraddaas iyo infrastructureka siday u hagaajisay ay ugu guuleysteen dalkaas oo ka soo kabtay dagaallo aada u qaraar oo dhexdooda ah oo dagaallo sokeeya ahaa. sida annaga u kabanayna marka waxaan ugu dirnay waddankaas oo aan ugu xulannay in waddan 10kii sano ee u dambeysay aad u soo kobcay ah ay ka faa'iidi karaan shaqaalaha wasaaradda, khibrad fiican ay ka soo qaadan kareen. saasaa kaliftay ayadoo weli aada ogtahay adduunku inaan isu socodka aada u adag yahay oo weli cudurkii koronaha uu jiro ousan ka dhammaan adduunka. laakiin saas ay tahayne way u dhabar adeegeen, waqti fiican ay soo qaateen, warbixin fiican ay noo keeneen, sawir fiican ay naga geeyeen dalkii ay tageen. warbixinta la iiga soo gudbiyey aaday u wanaagsanaayeen. wixii ay ka soo faa'iideenna waxay dib ula soo laabteen wasaaradda oo la rabo inay ayagana maadaama ay ayaga naftooda wakiilo ka ahaayeen wasaaradda, nin walba waaxuu ka socday waaxdiis inuu wixii oo la soo kulmay oo dib ugu daadajiyo agaasimayaashii iyo shaqaalihii isla socday wixii ay ka soo faa'iideen inta ay maqnaayeen. gabagabadii waraysigeena ku jirnaa wasiir. wasaaraddu waxay waday qorshe ah degmooyinka caasimadda ee magaalada muqdisho looga hirgelinayo wadooyinkan lagu hagaajinayo interlooga. xaggee maraya qorshahaas? qorshahaas meel fiican oo maraa phase 1kii waa gabagaboobay ilaa iyo 7 degmo oo ahaa phase 1kii oo interloogyo lagu dhigayay. 7daas degmo waa gabagabo. waxaa dhiman intii ugu dambeysay supervisionkii iyo warbixinadii. waxaa la aadi doonaa phase 2 mashruucaas oo dowladaha hoose aad uga shaqeeyo. aanan ka shaqeynin keliya dowladdeenan hoose oo muqdisho, xataa gobollada waa aadaa loogu hirgeliyey. marka 10kii degme ee haray waxaa waaye caqabadaha iyo waxyaabaha koronaha iyo ayaa xoogaa dib noo yara celceliyey. laakiin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku bilaabmaan magaalada muqdisho 17 degmo si guud bilicda. iyadoo aa og tahay dowladda hoose ee xamar aaday u dadaaleen, wadooyin fara badan ay dib u dhis ku sameeyeen oo ay dhiseen oo magaalada muqdisho annaga nafteenu aan aada uga warheyno oo isxilqaan ay isxilqaameen ayaga iyo shacabkaba oo ay iskood magaalada inta badan wadooyinkii muhiimka oo halbowlaha ah waa dhisan yihiin. hadda lafteedu wadada waxay wadaan oo ay dhismo fiican ku wadaan wadadan Madiina ilaa iyo xoosh isku xirto oo meel gabagabo u marayso oo dowladda hoose naftoodu ayagu ay dhisanayaan oo gacmahooga iyo dhaqaalihii iska aruuriyeen shacabka magaalada muqdisho degan canshuurtii laga aruuriyey loogu dhisayaa. sidoo kale 10kaas degmo oo interloogyadana wuxuu marayaa meel wanaagsan, wuuna bilaaban doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan. sidoo kale gobollada maamul goboleedyada aad ay uga socdaan. waxaa aada uga faa'iidaystay Puntland, Somaliland mar hore ayba ka faa'iidaysatay. waxaa hadda loo bilaabi doonaa oo senteradaas ay ka hagaajisan yihiin Jubbaland iyo South West oo ayagana jidad loo dhisi doonaa oo laami ah oo fiiskii ugu dambeeyey gabagabadii qandaraaska kambaniyada qaadanaya la siiyey. aan rajeynaya mar dhow inuu bilaaban doono. tiim wasaaradda hoos tago oo maamul goboleedyadaas ka shaqeeyo oo wasaaradaha howlaha guud ee halkaas jooga iyo dowladda hoose la shaqeeyo sida tiimka xamar oo kaleete. sidoo kale waxaan dhammeynay hadda oo inaan sameyno
tiimkii ka shaqeyn lahaa galmudug iyo hirshabelle. galmudug waa loo dhameeyey, hirshabellena hadda waxay ku jiraan gabagabadii shaqaalihii ka shaqeyn lahaa oo dowladaha hoose beledweyne iyo dhuusamareeb la shaqeyn lahaa. dhuusamareeb waa dhammaatay, 6dii qofood oo ka shaqeyn lahaa oo shaqooyinkaas soo gudbin lahaa, warbixinadii usoo gudbin lahaa mashruucan hadda oo degmooyinkan lagu dhisaayo qeybihiisa kale ee gobolada. beledweyne gabagabe waxay ku jiraan interviewgii marayaan meeshii u dambeysay. marka waxaan rajeynayaa bilaha soo socda ayaga naftoodu inay shaqada sida xamar iyo baydhabo iyo garoowe iyo kismaayo ay uga socoto kale dhuusamareeb iyo beledweynena looga qaban doono, ay soo assessmentiga sameyn doonaan. sidoo kale waxaa jiro wadooyin oo 4 state hadda assessmentigooda la bilaabi doono, gaar ahaan 2 state oo bishan abril kambanigii ku guuleystay in assessmentigaas oo sameeyo la siin doono qandaraaskaas oo isagana ku bilaabi doono sida ugu dhaqsiyaha badan 6 bil gudaheedna oo ku keeni doono. waxaa ka mid ah hirshabelle iyo puntland, 3 maamul waaye, hirshabelle, puntland iyo galmudug. waxay ka bilaaban doontaa beledweyne ilaa feerfeer, dhuusamareeb, gaalkacyo to garoowe. ayaguna waxaa waaye bishan abril aan rajeyneynaa in la saxiixo, kambanigii assessmentigaas sameyn lahaane oo ku guuleysto, kadibna 6 bil kadib jidadkaas la dhisi doono. sidoo kale jubbaland iyo jid kaloo puntland u haray ayaguna rajada waxaan ka qabnaa in la xayeysiin doono oo sida ugu dhaqsiyaha badan ayadana loo bilaabi doono assessmentiga iyo fulintoodaba. wasiir waa mahadsan tahay. wasiir maxamed soomaali, fursaddan uu ku siiyey warbaahinta qaranka maxaad uga faa'iidaysan lahayd gabagabadii? waa mahadsan tahay fursadda SNTV ay maantana siisay oo inagu soo booqatay xafiiskeena. waxaan uga faa'iidaysan lahaa horta ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. waxaan Ramadaan Kariim, maanta waa maalinta koowaad ee Ramadaanka. in bishan waa bil cibaado oo khayr badan ku jiro, inaan ka wada faa'iidaysano, dalkeennana aan u duceyno marxaladaha iyo meesha oo marayo. sidoo kale waa dalku dib u dhis oo aaday, wixii hadda ka dambeeyo dib u dhiskaasna Soomaaliya oo dhan inay ka faa'iidaysato. meesha ay hadda diyaaradaha u kala raacno, gobolada iyo degmooyinka aan diyaaradaha u kala raacno, waxaan rajeyneynaa in mustaqbalka dhow aan inta u wada jeesano aan gawaari ku tagno. qarashka faraha badan oo dadka yaraa, marka dib u dhiskaasoo dalku u jihaystay shacabka Soomaaliyeed waxaan ka rajeynayaa inay dowladooda sidii haddaba ula shaqeeyaan ee gacmaha labada dhinac ka qabtaan. sidoo kale si dib u dhiska dalka iyo kaabayaasha dhaqaalaha si ay u dhismaan, waxaa muhiim ah in amniga si guud aan uga wada shaqeyno, annaga iyo shacabkaba sida haddaba ay iskula shaqeeyaan. amniga markii la helaa wax kasta oo ka dambeeya la heli karaa. dowladnimada ayaa shacabku muhiim u ah. qof gaara wax ma dhisi karo jidad. 30 sano jidadka sidaan ahaayeen. dowladnimada gacanteeda weyn tahay oo dowladnimada in laga wada shaqeeyo, shacabka Soomaaliyeedna ay hareeraha qabtaan dowladooda, amnigana aan number 1 ka wada shaqeyno si dhismaha jidadkaas aan rabno mustaqbalka dhow in la dhiso, dowladda iyo kuwa socdaba ay noogu fududaadaan. marka waa mahadsan yihiin dhammaan SNTV, bahda SNTV oo maanta si gaara noo soo booqatay, nagu soo booqatay xafiiskana. waa mahadsan yihiin, shaqada qaranka u heysaan, 24 saacaad heeganku tihiin, bilicda iyo quruxda iyo dib u kabashada dalka aad baahinaysaan. idinkana waa idinkaga mahadcelinaa. dhalinyaro aad active ah oo naftood hurayaal ah oo wadankooda iyo qarankooda u shaqeynaya tihiin. idinkana waxaan idinku dhiirigelinayaa, dalka waa wada leenahay, qof gaara ma laha. nin walba mas-uuliyaddiisa iyo meesha kaga aadan inuu ka qaato. waa mahadsantihiin.